kooban gudahood ay ku soo afjari doonaan Somaliland sida ay hadalka u dhigeen Cawil Ciise in dhacday wariyahayga ayaa warkan si dhameystiraya. maamulka Puntland ayaa si lama filaan ah waxa uu kaga hadlay mustaqbalka iyo sii jiritaanka Somaliland waxaana ay si gaar ah kaga hadleen colaadda ka jirta deegaan oo ka tirsan gobolka Sool oo u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Somaliland waxaana intaasi lagu daray in mustaqbalka dhow ee Somaliland laga yaabo inuu meesha ka baxo maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Came ayaa ku hanjabay in muddo 6 bilood gudahooda ay ku soo afjari doonaan maamulka Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya haddii ay sii jirto colaadda waqtiga dheer ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Sool taa oo ka taagan xilligan aaga deegaanka Tukaraq ee gobolkaasi injineer Came ayaa tilmaamay in Puntland ay awood buuxda u leedahay inay wareegto dhulka xoogga looga qabsaday ee gobolka Sool oo ay ugu horeyso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi waxaana shakhsi lunsan uu ku tilmaamay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inuu dagaal ka horinayo gobolka Sool injineer Came ayaa sidoo kale waxa fariin u diray beelaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo ay ka soo jeedaan ciidamada ugu badan ee Somaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq isla markaana Puntland la dagaalamaya waxaana beelahaasi ugu baaqay in ay ka fiirsadaan in wiilashoodu ay ku dhintaan dagaal micno la'aan ah oo uu dabada ka riixayo madaxweyne Biixi waxaan arkayay isma nabadgelyo ku baaqaya kollayba anigu waan la qaadanaya laakiin markee la qaadanaya ismada ka hadlay Burco baan ka hadlaya beel bay u badnaayeen waa la yaqaanaa beesha ay u badnaayeen waa beesha ciidankoodu Tukaraq ugu badan yahay bal iyagu labadii hays waafajiyeen aan filayaa ismadu labada inay is waafajiyaan war ciidankiina halkan ugu badan oo waan hubaa nabadan aad ku baaqaysaan waxay ansax noqonaysaa markaad ciidankaaga meesha kala noqoto dawladda uu hogaamiyaha u yahay Biixi mas'uulina kama waa freelance waa iska loose guy waa nin qofku hadduu lumo waxaan qabaa inuu yahay nin madaxa ma jeclayn laakiin nin madaxa ay ka lunsan tahay maamulkii baan u arkaa sanad isagaan joogin buu already dalkii qurub gooyey waxaan dareemayaa 6 bilood oo dambe inaanu sii jireen haddii aanay ka fakarin reer Somaliland wixii u dan ah arrintan Tukaraq iyo xoreynta dalka qof waliba aqli iyo fakar iyo dhaqaalo wixii aad wax kaga tari karto kaga tar meesha ka soo baxdana ilaahay wax khayr qaba haydiin siiyo dhanka kale guddiga difaaca Somaliland ayaa soo bandhigay cutubyo cusub oo ka mid noqonaya ciidanka daraawiishta Puntland ee gobolka Sool kuwaasi oo tababar u qaatay sidii ay ula dagaalami lahaayeen ciidanka Somaliland oo ku wajahan deegaanka Tukaraq 40 kiiloomitir ka sii xiga dhanka magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaana ciidamadaasi guddigan oo iskugu jira labada gole ee maamulka Puntland ay kula dardaarmeen inay qaadaan tillaabooyin xooggan oo ay kaga hortagayaan waxay ugu yeereen gumaysi haysta dadka gobolka Sool habeenadii dhawtay waxa maxaan ku raray meel walba waxa ka soo ciidmaya iyaga isku faruuray waxa hawsha maanta haysata lagana deynmayo ilaa ay meesha ka yimaadaan ku noqdaan ama gacanta taagaan haddii rabbiidmo khayr baan idin rajaynaynaa iyo guul inagoo dhan aad baad u mahadsantihiin idinka iyo intii ka soo shaqaysay ee intii soo abaabushay hawlaha maxaan ku raray difaac oo dhan maxaan ku raray odayaashana waa salaamaya kale difaaca dowladda Puntland ciidamada difaaca dowladda Puntland runtii waa inay hambalyeynaya idinka iyo saraakiishiinaba waxa leeyahay nin reegina waxa u socota nin reegina waa ogyahay nacaysan loo sheegi maayo waxaan rajaynayaa inaad tihiin oo ku biiri doontaan xiriyihiina nooga soo baxdeen xoreynta dalka Puntland gaar ahaan gobolka Sool ee maqan waxaan rajaynayaa inaad tihiin aanu ku haweenahay kuwii cadowga jabin lahaa dalka qaban lahaa xoreyn lahaa inaad tihiin baanu aaminsanahay kuna faanaynaa waxaad xiriyihiina uga soo baxdeen oo guryihiina uga timaadeen oo caruurihii iyo xaasaskii uga timaadeen oo halkii uga timaadeen wax wixii maanta laydin tababaray wey wixii aad dalkan ugu dhaarateen wey waxaa inaad cadowga ka saartaan xoreysaan naftiina u hurtaan dhiiggiina u daadisaan waxaana rajaynayaa inaad tihiin ku guulaysan lahaa insha Allah wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa ku soo waramaya in madaafiic culus laga maqlay gudaha deegaankaasi oo isweydaarsanayaan labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland oo ciidamadoodu ay isku horfadhiyaan meel aan sida kaga fogeyn deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool
waxaana deegaankaasi ku wajahan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo lagu soo dhoweyn doono ugu horeyn magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si uu ugu sii dhaqaaqo jiidaha hore ee ciidanka difaaca somalilan ee dagaalka kula jira puntland waxaana dhaqdhaqaaqan ciidan ee dib uga bilowday iyo hadallada kulul ee labada dhinac ay isdhaafsanayaan ay imaanayaan xilli jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku baaqday in labada dhinac ay qaataan wada hadal islamarkaana dib loo soo celiyo kumanaan kun oo qof oo ka cararay colaada ka jirta deegaanka tukaraq iyo tuulooyinka ku xeeran ee u dhexeeya magaalooyinka laascaanood iyo garowe oo labada dhinac xilligani ay ka arrimayaan dhanka kale ciidan maleeshiya beeleeda oo taabacsan puntland islamarkaana isku aruursaday deegaano hoostaga magaalada laascaanood ayaa dhankooda wararku waxa ay tilmaamayaan inay wadaan dhaqdhaqaaq culus taa oo laga yaabo in ay ka bilaabaan qaybo ka mid a magaalada laascaanood dhaqdhaqaaqooda ciidan waxaana ciidankaasi horey ay u weerareen 2 saldhig oo ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isagoo maamulka puntland sheegay in ciidamadaasi uu si dhow ula shaqayn doono islamarkaana ay garab istaagi doonaan ciidanka gaarka ah ee puntland ee magacooda loo soo gaabiyo BMBF